Allah u naxariistay abwaan maxamuud cabdulaahi ciise oo sagum ku magac dheera ayaa ku geeriyooday isbitaal ku yaala magaalada Addis Ababa maanta oo shalay uun qalin dhinaca lugta lagu sameeyay sida ay noo sheegtay Muna Maxamuud oo abwaanka u dhalay. Muna waxay radio kulmiye u sheegtay in abwaan Sangub maalintii Sabtiga la geeyay magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya axadiina isbitaal la dhigay hase ahaatee maanta uu ku geeriyooday. Allah u naxariisto horta aabba Sabtiga Itoobiya tagay Addis Ababa axadina waa la dhigay dhakhtarka shalay bashina qalliinka uu galay marka lug baa xanuunaysa mooy dhibka iyo culeys kale ma qabin lugta midig ma aragtay oo in muddo xanuunaysay ayaa jirtay marka sida naftooga baxday oo ay ugu tiraaba nafti ma wada naf baxan. abwaan Cismaan Cabdulaahi Guure oo dhamaadkii bisha Ramadaan ay cimrada isku arkeen abwaan Sangub Allah u naxariistay ayaa inooga sheekeynaya sida uu ahaa markii ugu dambeysay. buraandiini abwaan Sangub Allah u naxariistay markii cimrada aan wada joognay xaaladiisa waa uu xanuunsanay sida la socoto horay sokor iyo dhiikar buu u qabay haddana lug ayuu ka xanuunsanay oo waliba waa jaban tahay iyo tarana ku jiray inta la isku hayay inta cimrada lagu jiray aad uu xanuunsaday oo waxa la geeyay isbitaal ay boqortooyadu leedahay hase yeeshee waxay dhahaan qalliin kuma samayn karno oo in la qalo lugta bir la geliyo ayay rabtaa qalliinna laguma samayn karo sokortiisa aad u kacsan ayay dhahaan markii sokortu ka soo degto loo soo celiyo ayay yiraahdeen asagoo xanuunsan oo lagu wado gaariga lagu riixayo ayaa hadii la ku roon yahay oo dawaafay xaramka Rabbi kadibna magaalada Jidda ayaa la keenay markaas anigu waan soo gudbay oo hadii la ku roon waan soo baxay hase yeeshee laba maalin ka hor ayaa la geeyay magaalada Addis Ababa oo waxaan maqlay in madaxweynaha Tilinka Mustafa Cabshir oo casuumay isbitaal ayaa la geeyay xalay waxa la sheegay in la qalay hase yeeshee weli suntii ay ka bixin oo soo naaxin qadarta Rabbi ayaa dhamaatay hadii Allah u naxariisto waxaan isleeyahay asagoo 10kii Ramadaan u dambeysay cimraysanay oo cibaadaysanay oo xanuunsan oo Ilaahay dartiisa soo gurguuranayo u dawaafay waxaan isleeyahay dariiq wanaagsan ayuu ku dhintay marka Ilaahay u naxariisto bashar waliba waa dhiban balla weeyeen geeridu qofla baaqan ma yaal ugu diisa u nuure. Ilaahay u naxariistay abwaan Maxamuud Cabdulaahi Ciise Sangub sanadihii afartamaadkii ayuu ku dhashay deegaanka Dhagaxbuur ee dhulka Soomaalida galbeed si weyn ayuu uga dhex muuqday fanka Soomaalida waxaana uu ka tagay dhaxal suugaaneed aan tira yareen oo wadaniinta u badan ayuu tiriyay waxaana kamid ah heeso guubaaba ah oo xataa lagu gubaabinayo madaxda Afrika riwaayadaha ay wacansan yihiin qabriga jaceelka xuska jaceelka xuud baaliqa jaceelka waa maadays adduunyada dadku noo matalayaan iyo kuwa kale oo aan tira yareen ayaa abwaanku uu sameeyay sidoo kale bahda fanka ayaa ku tilmaamay Allah u raxmaday abwaan Sangub inuu ugu horeeyo abwaanada ugu riwaayadaha heesaha badan waayaha burburkana waxa aad lagu xasuustaa sameynta riwaayadaha ay kamid yihiin qabya 1 iyo 2 oo ku sameeyay dalka Mareykanka iyo riwaayadii kale ee siyaasadda maxay tahay sanadkii 2013 waxa uu ii sheegay inuu fanka ku bilaabay ciyaaraha hidaha dhaqanka oo marka fanka la joogo loo yaqaan ciyaartooy abwaanka ayaa sidoo kale soo noqday maamulaha tiyaatarka magaalada Hargeysa waxaana uu soo saaray fanaanin caan ah oo aan tira yareen waxyaabaha lagu xasuusan doono abwaanka ayaan weydiiyay abwaan Cabdulluux Yuusuf oo kamid ah abwaanada Soomaaliyeed. Wallahi Sangub waxaan isnaqaanaa muddo dheer waa bari waan isaga horeynay Sangub 4 baan meesha hadda xalana loo bixiyay ayaan ku wada galnay dhibow askareed kooxdii xoogga dalka Soomaaliyeedna waan wada ahay dabadeedna waa bari baan lagu wada aasaasay Sangub iyo anigu shaqo badan baan soo wada qabanay dibadda iyo gudahaba riwaayado badan baan wada dhignay oo isagu uu lahaa iyo kuwa kaleba riwaayadii ugu dambeysay oo wada dhignayna waxay ahayd darajiye xilliya mudan oo aan Djibouti ka wada mataladeeda ka wada qayb galnay isaga abwaan buu ahaa weyn dadka ugu riwaayadaha badan la waa bari buu ayuu kamid ahaa aduuna ugu horeeyninba dalkan heeso iyo riwaayado iyo gabayo wax badan buu Sangub lagu xusuustaa kaydka waa buuxa hadii Sangub laga baaro meel walba dalka iyo dibadda abwaanku waa soo shaqeeyay askarinimo ku soo shaqeeyay abwaannimo ku soo shaqeeyay ciyaaryahan buu ahaa gabayaab buu ahaa abwaan sheekooyinkii riwaayadaha sameeyay ahaa
ilaahay waxaan ka baryaynaa ilaahay inuu naxariisto ilaahay inuu u naxariistaan ilaahay ka baryaynaa. heesaha uu sameeyey waxaa ku jira qaar xataa afrika xorriyadeeda uu qayb kaga qaatay maxaa yacni heesta caanka ah oo la yidhaahdo muxuu ahaa markaas afrikaanku ay xor ahaa 49 dal oo afrikaana ayaa xor ahayd uu heesta ku asteeyey 49 naas buu afrika sidaadaba sacbaad xoola leedahay la yidhaahdo saxardiid 49 naas oo caanuhu ay susumayaan yacni heestii cajaa'ibka ahaydoo ay ka qayb galeen magool iyo saynab cige iyo salaaderbi iyo maxamed saleebaan ay baartisoolada ku lahaayeen ayay ahaydoo cajaa'ibka ah oo de marka la fiiriyana xagga siyaasadda iyo wax nooca uga hadlay ahayd nooc cajaa'iba. abwaanka waxaan leenahay wakhtigii baa ku dhammaaday intaasuu adduunyada ku lahaa taariikh badanna wuu ka tegey ilaahayga casa wajallah u naxariiso qabrigana allah u waasiciyaan leenahay. ehelkii iyo xaasaskii iyo caruurtii iyo saaxiibadii na waxaan leenahay samir iyo iimaan allah ka siiyo annagoo dhanna samir iyo iimaan allah naga siiyo. gudoomiye ku-xigeenka golaha abwaanada abwaan xiisadhuux maxamed weheliye ayaa ka tacsiyeynaya geerida abwaanka. inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun laa yastaqdimuuna saacatan walaa yastaakhiruuna madinta waa ilaahay aan shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan khaas ahaan golaha abwaanada soomaaliyeed khaas ahaan qoyska abwaan maxamuud cabdulaahi ciise sangub uga tacsiyeynayaa geerida naxdinta leh ee ku timid allah u naxariistee abwaan maxamuud cabdulaahi ciise sangub. maxamuud cabdulaahi ciise sangub wuxuu ahaa gudoomiyaha golaha abwaanada soomaaliyeed. waxaan leeyahay kitaabkiisa midigta allah ka siiyo martii la jecel yahay oo lasoo dhaweeyo allah ka siiyo. waa tiir ka jabay tiirarkii abwaanada soomaaliyeed ku taagnaayeen run ahaantii aad iyo aadna muxuu ahaa waa arrin murugadeeda leh. marka allah u naxariisto shacabka soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan qoyskiisa iyo golaha abwaanada soomaaliyeed dhammaantoodba waa uga tacsiyeynaya. allah u naxariistay abwaan maxamuud cabdulaahi ciise sangub oo ay ku weyneyd soomaalinimada ayaa sidoo kale lagu xasuusanaya gabayo aan tiro yarayn oo uu ka sameeyey xaaladaha dalka waayihii burburka iyo xataa meesha uu ka istaagay damaca kenya ee badda soomaaliya. tulaay dowladayda tulaay ciidankaygii geesigaayo tulaay ama maanta ay kenya iyadoo dhulka iyaga haysata ay ku firdheen inay ku soo dulkaan oo intaa dhala qaataan. haddaanu nahay bahda radio kulmiye waxaan tacsi u diraynaa ehelada abwaan sangub allaha u naxariistee oo aan tiiraanyada la wadaagayno.